bismillaahi raxmaani raxiim. Haatan waxaa nala joogta gabar yar oo aad u jeedaan indhaheeda inay effect ama wax gaarsiisan yihiin oo indhihii sidii la rabay aysan ahayn, sababo jiro ku dhacay iyo wax amuura xag rabbi ka socday oo walow dad qaar ee sabab u ahaayeen. Yariise magacaa bal ii sheegba. Faadumo. Waxaa ku weydiinaa haddeertaan wax ma arki kartaa? Hal ilaa artaa wax. Hal ilaa wax yar ka aragtaa soo ma haye tee waa isha wax ka arkaysa? Midigta. Tan midigta wax ka arkaysa. Hay midda bidixda wax ma ka arkaysaa? Maya. Wax ma ka arkaysa miyaa? Haa. Waa gartay. Sidaa u muuqataan u jeedaan oo idin muuqato gabadhan sida hadda xogta aan ku hayno koley waxay degan tahay deegaan ahaan koley agaaraha magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir agaariisa. Koley hadda waxaa nala jooga hooyadeeda koley qaabka wax u dhaceen iyo sidee waxyiin iidaan haddana ka wareysan doonaa. Gabadhaada Soomaa gabadhan? Haa. Haye markii hore gabadhaada waxa haystay ama jirada aa ku aragtay maxay ahayd iyo sababaha kugu dhaliyay macnaha marxaladan inay gaarto gabadhaada ma waxay ku dhalatay ma aha mise waxyaabo gaari oo cudur ku dhacay indhaha ayuu ahaa? Caad ay ku dhalato waay. Waa cudur ku dhalato waay Soomaa. Okay, waxaa ku weydiinaa kadib markaa ku aragtay indha la'aanta ama cudurkan indhaha gabadhaada ka muuqdo yaa kala xiriirtay mise maxaa yaa xog ahaan gabadhan kula xiriirisay cudurka indhaheeda ee ku dhalatay? Dhaqaatiir la kulmay marka iyaga igu caawiyeen oo lacag oo saasna ma laga qaadan wax yar aan bixiyay. Ceylash biyaha. Okay, macnaha qolo team sida aad sheegaysid oo lacag la'aan dadka indhaha ugu fiiqayaan oo iyaga ayaa la xiriirisay xagga caafimaadka indhaheeda kula xiriir Soomaa sidaas aan fahmay. Haa, saas waay. Ayo waayahay labada indhood miyaa mise mid kaliya waay waxa cudur ku dhacay mise waa labadooda si wada jir oo cudurka ugu dhacay? Labadaba. 2013 mid la fiiqay midna 2016. Aragtida hal xaba u fiican hadda wax yar oo saad xatay ma ahan san kalena ewer waay. Okay, macnaha maadaama duruufo dhaqaale jira aawadeeda ayaa dhaqaatiirtaas lacag la'aanta dadku ugu fiiqayo oo magaalada gaaforeegaysa sidaas daraaddeed uu geysay. Okay, misleedahay marka maadaama sidii hore iyo qaliin kadib maadaama indhihii lagu sameeyay misleedahay way kaaga wanaagsanaayeen macnaha way ku fiicnaadeen qaliinka kadib mise sideedii hore ayay ku fiicneed? Sidii hore rooneed hadda waa ka sii dartaba. Haa, ma hadda aragtida okay ma laakiin ewl rooneed. Marka hore fiicneed indhaheeda gabadhan yarta ah kadib markii qaliinka lagu sameeyay ay aragtideeda intii hore ay haysatay ayay buwaysay. Maxaa hadda aad dalbanaysaa oo isleedahay gabadhan yarta oo lagaaga qaban karaa? Waxaa dalbanayaa dadkii wax ka qaban kara inay wax ka qabtaan saasa ka dalbanaa. maasha Allah aad u mahadsan tahay. insha Allah waxaa rajeynayaa dhaqaatiir ama hadday jiraan dad walaalo Soomaaliyeed ama dad jecel inay dadka aan awoodda u lahayn inay wax isu taraan aan rajeynaa insha Allah inay wax ku qaban doonaan. insha Allah kulli waa dadaalka xag alle waa la dadaala bini'aadan leeyahay. insha Allah waxaan rajeynaynaa inta qof oo markaas rajeynaysa ama shakhsiga rajeynaya gabadhaas yarta ah ee ku dhalatay macnaha aragti la'aanteeda kadibna qaliin lagu sameeyay uga sii dartay qaliinka lagu sii sameeyay aan dhakhtar toos lagu la xiriirinin gacanta u gashay dad qaar oo indho la'aanta oo macnaha dadka qaba ugu tabarucay si lacag la'aan ah iyadoo duruuf aawadeed maamada dhashay gabadhan u saamixi weysa dhakhtar toos inay kula xiriirto. sidaas daraaddeedna dadka teamkan oo lacag la'aanta dadku ugu fiiqayay sababsadeen in aragtidii hore ay haysatay inay ka sii dartaba wax sii arki weysay
insha allah waxaan rajeynaa dadka jecel wanaagga iyo khayrka jecel inay wax u qaban doonaan. waa gabadhan gabar aad iyo aad u yar, jecelna mustaqbalkeeda iyo waxbarashadeeda inuu aad iyo aad usii macnaha usii horumariso, haddana ay ku dhacday aragti la-aan. insha allah waxaan rajeynaynaa inay qayb muhiim ah ka qaadato doontaan. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.